waxaan doonayaa inaan ka hadlo qaybtii hore sida ay uga shaqeeyeen shaqaalaha dekadda berbera iyo sidii ay isu kala muujiyeen waxaan u siin doonaa shaqaale sharaf iyo bilado waaxuu sidii ay u kala shaqeeyeen sida la ogyahay waxaan dekadda imika aynu ku taaganahay gacanta ku haysay ama wadda farsamadeeda waaxda farsamada oo aan oran karo waxay qaatay qaybta koowaad waxaan ku xigay operation-ka oo u kala baxayay ama 5 meelood 4 meelood u gelaya shaqada operation-ka aan ku noqdo waxa aad uga muuqday oo shaqadoodii iyo wax ka badan qabtay labada geele ee A iyo B xafiiska operation-ka shaqaalihiisa iyo sarfadoorinka geelshiidka iyo hooskalayaasha waaye waxa ku xiga oo qaybta saddexaad gelaya security-ga dekadda oo muujiyey xilkasnimo weyn waxaa ku xiga oo aan odhan karo waa raggii ugu ficilka badnaa waaxda socodka badeecadda waxaa ku xiga waan la ilaawi karayn sida ay u dadaaleen waaxda badda ama harbor masterka iyo xafiiskiisa waxaan marnaba shaqadooda gabin ama intii loogu talagalay qabtay waaxda xisaabaadka waxaa ku sii xiga waaxda shaqaalaha waxaan is odhan karaa intaa markaan ku dhaafo waaxii ka shaqaynayay dheeliga waxaan islahayn shaqadu waynu ku habsaamaysaa laakiin ninka ciidanka dekadda haystaa waxba ku habsaami maayaan waynu ismuujinay intii aanu ku talagalnay in ka badan baa qabateen waannu idiin mahadnaqaynaa iminkana waxaynu bilaabaynaa wejigeennii labaad oo aynu sharaf iyo ku helnay ammaan iyo bogaadin waxaanan qabaa inaad si wacan isu xilqaanteen wax badan u dulqaadateen sibir waxyaabo aanadin hore uga shaqayn jirin aa ka shaqayseen ilaahay jasaayigiinna miisaanka xasanaadka ayuu ku daro shaqadeennina waynu gelaynaa wax badan oo dabadda nooga imanayay ama magaalada nooga imanayay ama shirkada nooga imanayay oo lahaa waxaanu idinla gelaynaa ayaa jiray oo aanu lahayn waanu isku filana waana mahadsantiin shaqadeennii labaad baanu gelaynaa tii saddexaad baa inoo hadhay waxaynu samaysan doonnaa kii maraakiibtu ku soo xidhatay